بسم الله qaybta xigta waxaan ku baran doonaa sida offset-ka loo sameeyo offset-ka waxa waaye in masaafo mucayan ah ka sikatid object tusaale ahaan line ay haysata line halkaan ku sawirtay line kan waxa rabtaa in aad ka sikato masaafo mucayan marka haddii aad taabto offset waxaa kasoo dooran kartaa marka hore modify ku dhex jira modify waa midkaan modify aad tegaysa offset halkaan ku yaala click ku siinay wuxuu ku weydiinaa cabirka ay gelinaysid for example waxaan rabaa line kale oo la siman oo parallel ah oo u jiro 5 mitir oo kale inaan sameeyo oo ku dhufanaa enter taabana kadib line ka ku dhufanaa saana soo sikana markaysa 5 mitir u jira intaas saas offset loo dhahaa marka waaye haddii rabto inaad line kale sawirtid line kale saan u sawir offset soo dooro geli 5 mitir enter taabo halkaan ku dhufo hoos u aad markaas saasa offset-ka loo sameeyaa line haddii tusaale ahaan oo kale aad u baahtid inaad qol camal sawirtid waxaad dhigi kartaa line soo dooro qolka cabirkiisa waxaa san u yahay kasoo qaad inuu sidan u yahay horta ma arkaysaa inuusan toosmaynin waxaa la taabtaa calaamadan ortho ama F8 computerkaada taabatid way toosaysaa line maqaloocanaya hadda ma arkaysaa 4 mitir waa qolkan bal ciise dharkiisana 4 mitir kale leenaasina 4 mitir kale 4 mitir kale marka isku soo xirmo escape taaba marka qolkaan oo kala sameysay waxa rabtaa inaad offset u sameysid oo muujinaya thickness-ka darbiga uu leeyahay darbi walba waxa ogtahay ma jiro darbi line matalaya drawing-ka darbiga inuu matalo waxa laga dhisayaa bulkeeti inuu yahay ama dhagax yahay ee noqonaysa markaan joogno tusaalaan Soomaaliya kale marka offset aan taabana waa tan offset thickness-ka bulkeetiga waxa waaye 0.20 enter leeyahay oo ku dhufan halkan banaanka u baxa oo ku dhufan halkan banaanka u baxa ku dhufan halkan banaanka u baxa markaysa kaas waxa la offset si loo sameeyo mar walba waxa uu isticmaali kartaa marka drawing ay sameynaysa ku xiran tahay darbi bis mar uu muujiyo sometimes waxyaabo oo ka duwan oo isticmaasha laga yaabaa marka offset ka loo sameeyo halkaas ku keenana marka